maanta ay taariikhdu tahay 11kii bishii afaraad ee sanadka 2019 maxkamaddu waxaa la hor keenay eedeysane Mukhtaar Cabdikaafi Xirsi oo kufsi u geystay dhibane Faarax Jaamac maxkamadda darajada koowaad gaalkacyo waxay ku xukuntay dil toogasho iyo $5,000 oo ay xukuntay magdhow dhibanaha oo ahayd Faarax Jaamac Faarax Siyaad oo ahayd gabar 6 sano jir ah eedeysanahuna uu kufsaday waxa xusid mudan oo Ilaahay galadiis ah in eedeysanaha lagu guuleystay baaris dheer kadib in la soo qabtay sharcigana la horgeeyay ciqaabta oo xaq u lahaana la marsiiyay waxa kale oo xusid mudan eedeysanahu inuu ahaa nin aad u daaweyn oo cumrigiisa uu gaarayo 36 sano asagoo jiray inuu kufsaday dhibane jira 6 sano laftirkiisuna uu ahaa nin la nool xanuunka HIV/AIDS-ka oo ahaa nin xanuunsan maxkamadda darajada koowaad ee gaalkacyo waxay u cuskatay qodobada kala ah qodobka 6aad ee xeerka kufsiga Puntland 39 duruufaha dambiga cusleeya iyo aayadda 33aad ee suuratu Maa'ida maxkamadduna waxay ku xukuntay dil toogasho eedeysane Mukhtaar Cabdikaafi Xirsi waxaan ku kalsoonahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka rajaynaynaa eedeysanayaasha faldambiyeedka kufsiga geysanaya in dhulka hoostiisa xataa haday galaan laga soo bixiyo ciqaabta ay xaq u leeyihiin la marsiyo sida kuwa badan oo maalmihii la soo dhaafay saasoo kale kufsi intay u geysteen gobolka Mudug loo xukumay oo lagu xukumay 20 sano iyo dil toogasho intaba eedeysanahan wuxuu u dambeeyay kuwa caynkaas oo kufsiyaal ka geystay magaalada Gaalkacyo daafaheeda maxkamadduna ay ku xukuntay maantay dil toogasho ciqaabta uu xaq u leeyahay uu qaadanayo insha Allah ta'ala anigoo ah aabihii dhalay dhibanaha Faarax Jaamac Faarax Siyaad maadaama maanta xukum dhacay kulli xukum sugan baanu ahayn anagu xukumna wuu dhacay qasab ma xukumku inuu ku qanciyo laakiin sida wax loo maamulo inaad aragtaa waa wax meesha ku jira weey xukum baanu dhageysanay xukumkan dhageysanay waxa weeyaan ninka maxkamadduna ku xukuntay dil toogasho ay ku xukuntay inta kadib waan horta marka koowaad xukum mar hadaan sugaynay sida hadda xukumku u dhacay dood kama qabo